Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa ku salaama meel walba oo dunida ku joogtid. Waxaa ku leeyahay subax wanaagsan. Bacdi subax kadib saaki waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin aan shaqo ku lahayn, balse xilligan markii la joogo ay tahay inuu qof walba bulshada ka mid ah oo ka hadlo ay waajib tahay, aan lagu daanin keliya bahda caafimaadka. Waana cudurkii xumaa ee coronavirus ee COVID-19 oo soo laba kacliyey. Marka bulshadani inta badanaa waxaa u moodaa sanadkii hore sanadkan inay sanadkan ku baraarugsan yihiin. Waxaa dhowr qodob dadka uga hortagi karaan ama sababo ama isku arkaan aysan u baahnayn goobaha caafimaadka ama aysan caafimaad la tashanin. Sanadkii hore markii baashan face mask-gaaneti qofkii watay cudur ma qabtaa la dhihi jiray, balse bulshada aad u mahadsan yihiin. Sanadkan wacyigelinta iyo baraaruga aad u soo kaceen. Sanadkan waxaa arkaysaa saddexda qof meel socoto laba qof inay face-ki wadato af daboolka. Waa mahadsantiin idin leeyahay, bulshada sanadkan way ku baraarugtay. Marka dhowr qodob marka waxaa kaloo ogaataan aniga dhakhtar ma ihi, caafimaadna ma barto, balse arrintan waxaa kasoo xigtay bahda caafimaadka si aan ugu faa'iidaysto bulshada halkan ka daawanaysa ayagana ugu faa'iidaystaan. Waxaa rabaa ilaa afar qodob ee dadka inta badan ay isweydiiyaan waa maxay coronavirus ama COVID-19, calaamadaha cudurka, iyo qaabkee ayuu ku faafaa COVID-19, iyo qaabkee looga hortagaa. Haddii aan guda galno mawduucana, waa maxay coronavirus ama COVID-19? Coronavirus ama COVID-19 waa cudur halis ah oo si dhaqso ah loo kala qaado ama ku faafo, wuxuuna ku gudbaa neefta iyo taabashada. Waa cudur halis ah oo si dhaqso ah loo kala qaado, wuxuuna u gudbaa neefta iyo taabashada. Taas wuxuu yahay waaye calaamadaha cudurka lagu garto waxaa ka mid ah qandho, kharkharyo, qufac iyo hindhiso badan, madax xanuun badan, shuban, neefta oo kugu adkaato, dhadhanka oo kaa dhuma, urka iyo carafta oo aad kala garan weysi. Marka qodobkan labaad waxaa daba socoto fiiro gaar ah. Marka haddii aad isku aragto calaamadahanet la xiriir goobaha caafimaadka ugu horeysa ama u horeeya wasaaradda caafimaadka, adigoo garaacayo nambarkeeda gaaban 449. Qodobka saddexaad, qaabkoo ayuu ku faafaa coronavirus ama COVID-19? Coronavirus ama COVID-19 wuxuu ku faafaa si dhaqso ah, wuxuuna raacaa hawada marka uu qof qunfaco ama hindhiso. Marka uu qof qunfaco ama uu hindhiso qof ama xayawaan qabo. Sidoo kale marka aad taabato ama salaantid qof qabo cudurka. Marka qof qabo cudurka ama uu qunfaco ama hindhiso, ama xayawaan qabo ama hindhiso, ama aad taabatid qof cudurkaaseeti qabo. Qodobka ugu dambeeya ugu muhiimsan waxa waaye qaabkee looga hortagaa cudurkaaneti. Inta badanaa ka dabatag malaan ka hortagoo leeyahay. Marka qaabkee looga hortagaa, marka haddii kugu dhaco ka dabatagtaada aaday u adag tahay. Marka qaabka looga hortagaa ugu horeyn ilaa dhowr qodob qoran. Ugu horeyn alla tala saaro oo taxadir, ilaahay caafimaadka haayo, balse adina dadaalkii yaa heesaa. Alla tala saaro, taxadir. Qodobka labaad, iska dhaq gacmaha marka aad wax cuni rabtid iyo markaas marka aad wax cuntid kadib. Markaa cunrata gacanta iska dhaq, markaa dhamaysidna iska dhaq. Qodobka saddexaad, xiro af daboolka ama face mask-ga. Candhuuf ha ku tufin meelaha dadka ay u badan yihiin. Ka fogow qodobka kalena ka fogow meelaha dadka ay ku badan yihiin. Ha taabanin walxaha wasakhaysan sida caagadaha iyo waxyaabaha bulshada ee ka maarantay iska tuurtuurtay meelaha qashinka iskaga ha taabanin. Sidoo kale dadkan ha taabanin. Qodobka kale ha taabanin xayawaanada, bisadaha iyo eeyga iyo dadkii oo muslimiinta oo xayawaanada dhaqdaan fadlan ka fogaadaan xayawaanada. Qodobka kale iska nadiifi gacmaha markaad magaalada ka imaanaysid. Sidoo kale ama marka magaalada bixis waxaa muhiimsan inaad gacanta saabuun iska dhaqdid ama jeermis dile gacmaha iska nadiifisid. Qodob kale ugu dambeeya waxaa isticmaal tiish. Mar walbaba aad hindhisayso ama diif tufayso, tiish isticmaal, tiish ku tirtiro. Kadib markaad dhamaystidna goobaha loogu talagalay ama qashinka ku tuur. Intaasaa kusoo koobaynaa. Waa mahadsantiin. Marka waxaa laga rabaa wacyigelintan bulshada inuu qof walbo bulshada ka mid ah inuu wuxuu yaqaano ka sii yaqaano walaalkiis kale oo u gudbiyo.
maxaa lahaasi bahda caafimaad keliya aan lagu deynin arrintan bulshada ay khuseysaa sanadkii hore markii cudurkan nala soo wargeliyey kolley baashaan ninkii wati maxaa lahaasi waxaa la cudur maa qabtaa baashaan maxaa u wadataa iyo waa la midibta kuuraay balse bilcagsi sanadkan baashaan ninkii wato la soo dhaweystaan inaan faceka wadinin waxaa la tagora ninka ama nagu daartaa leeyahay marka baashaan laba faa'iiday leedahay face maskiga inaa xiratid mar walba golofisna muhiima markaa meel aadaysid golofis haddaan ma wato fackan laba waxay muhiim u tahay cudurka haddii adiga aa qabtid aa isku og tahay aa banaanka daruuri u tahay qof bulshada kale ma saameynaysid ma u gudbinaysid haddii facekiga aa weydid qodobka labaad ee muhiim ay ku tahay adiga ma lagu soo gudbinayo adina wax ma gudbinaysa adina ma lagu soo gudbinayo marka waa taxadir keliya cudurka ilaaha wado taxadirkaa leedaa adig taxadir face maskiga ha ka tegin guriga markaa kasoo baxaysid iska xiro haddii banaanka daruuri ah u tahayna alaabo muhiim banaanka aada ka maarmi karin iska soo bax markii haddii aadaba daruuri u ahayn banaanka iska joog xaafadaada saameyn ay kugu yeelanin meelaha bulshada ay ku badan yihiin iska ilaali maxaa lahaasi taxadir samee insha allah waa maasantiin fariintaaneetin inaa qaadi doontiina umaleynaa marka qof walba bulshada ka mid waxaa laga rabaa inuu gaarsiiyo bulshada markii laga soo tago waxaa la rabaa qof walba guriga joogo fariintan haddoo arko qof guriga joogo inuu walaalihiisa kale oo u sheego oo maxaa lahaasi ka taxadir oo dhaho wixii familiga haddoo ka bilaawdo bulshada kale banaanka way gaaraysaa habartii haddii caruurtii banaanka ay kasoo maqlaan habarta u sheegto habartii odayga isku sheegaan ilmaha habartiina caruurta yaryar dugsiga caruurta dugsiga dhigtaan markay kuwa asxaabtooda kale yarriiska u sii sheegaan fariintu isgaagaari waa maasantihiin ilaahay idinku cafo ilaahayna wada badbaadiyo insha allah khayran rajeyna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu